ragga Soomaalida ah ee lagaga dambeyn jiray ururinta iyo qabashada suugaanta Soomaalida siiba maahmaahaha iyo gabayada waxa ka mid ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Xuseen oo ku magac dheeraa Sheeko Xariir. haddaba waxyaabihii faraha badnaa ee ka baxay laanta af Soomaaliga BBC-da ee marxuumku ka warramay ee ku saabsanaa suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ahaa isagoo sharax ka bixiyay waxa loo yaqaan sarbeebta oo ah hadalka aan mutuxnayn ee ah hadalkii oo la sheegayo haddana la shareerayo. Soomaalidu waxay lahayd caado kolkay guursan hayso waxay daydayan jirtay gabadh guurgal ah. warinka hebel leeyahay gabadh guurgal amale waa nin la qaayibay oo gobanimadii iyo haasaawii iyo wax qabadkii iyo sidoo Soomaalida dhexdeeda wanaag uga shaqaynayay lagu qaayibay kolkaas uu isii ninka wax ku darso oo dhashiis iyo dhashaadu hay isku darmadeen. warinka hebel leeyahay nimankii yaqiinay buu weydiin warinka hebel leeyahay gabadh guurgal amale yahay gabadh guurgal waa maxay gashaantay isku tumato dhaarato hawl qabsigeeda hawl kar ah waa inay hadii reer guura awrteera ran karto kolkii la dagana waa iyadii oo sideedii u qatano qorraxdii sidii u kulushaynay aqalkeeda dhistay casarkiiba jid ka dhigtay roobka xaygiisu soo baxay ka gaarsiisay rag waxa jirsaday habeenimo hadii loo yimaado dadkoo hurda iyadoon hooyadeed toosinin waa inay martideeda soori karto oo la yiraahdo nimankii xalay wuxuu karinaysay hebel ayay ahaayeen gabadha guurgalkii taasay ahayd. ninkaas caada Soomaalida ka weecday oo sidaan hadda reer magaalo yeelo mid Allaahna hooyar oo cajab galisun buu iska kulmeeyay oo guursaday kolkaasay dhashay kolkaasay noqotay dhalaan dhalay oo waxba kale hagaajin weyday oo wiil bay dhashay oo wiilka qaacadiisii kaadidiisii caanihi naasaha ka daahiyay oo shaqi kari waayay hawshii wixii bay isla qaban weyday kolkaasay umul dhalaana noqotay. kolkaas uu aamin baalay oo yiri wallahi naagti waa basari gabadhii ka xumaatay guurkii tolow takayar hadaa tiraa igu dooriya maxay samayn wallahi inay ku dili war maxaad fashaa bal adeerkeed waa kaad wada shaxdaane farsaha dhexdooda joogtaane hadal sarbeeb ah bal adeerkeed huluqsin u gali wuxuu yiri gamaankiina badan feetina oo gabalba waacayne qaar baan ka goor iyo ka goor godolka deynayni qaar baan gadqaadkana la barin gaalibna aqoonni gabaxa lagu shakaaliyo duqi gaabi orodkiye gacalnimo haddaad naga qabtaan go'aha noo doorsha hadii kale sidaad noo gashanaya inoo gudub ah. ninkaasi dad ma soo hadal qaadin gabadhna ma sheegin xooluu sheegay farduu ka dhigay waliba dhexda kolkuu jooga haddana wixii dhadigaa uu ka dhaydhayo duq buu ku daray faras duq u cararay xaqi gabaxa lagu shakaaliyo duqi gaabi orodkiye buu yiri wuxuu ka hadlayeen gabadh buu ahaa kii hadalkii maskaxdiisu ku dhacay umana seexanin jaadna uma qaadanin dadna lama soo shawrine shaxda korkeedii ugu jawaabo wuxuu yiri hal gar oo shalay saahida ugu bil la yeedhay horta garab wagliil waa xun yahay la iska raaxay ninka ma yaqaanaas dhalgu gaasa bixiyay hadii nadigu gubana neef yari uu jira gariiray waa laba gu iyo dayr jir aan fulankeed galine waa ka gankeedii guryaha loogu caws guriye guudiya dabayleedahay gool sidee dhaliye maxaad ugu galaysaa haddaad fulma garan weyday buu war wuxuu guurgal ma aha waa dhalaan oo ka qayrkeed foodaleeyahay qolqolka caanaha ku dhamahaye tilmaan iyo samir iyo wax la hagaajin bay u baahan tahay haddaad adigu waxba agaasimi kari weyday maxaad anagana weydiin buu macnahi ka dhigan yahay gabayada caynkaas ee sarbeebta ah yaa Soomaalidu tiqiinay saahid kolka in laga garhelay u gartay yuu miyirsaday oo gabadhii wax la qabtay oo wiilka u hayay oo u faraxalay oo tilmaamay oo shaqadii aqalka la qabtay kolkaas wuxuu waa dambe yiri warnina naagi jaray saddex dhal gaadho waxa ka sheegay kaasina wuxuu ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Xuseen oo loo yaqaanay Sheeko Xariir oo ka warramayay sida ay Soomaalidu u adeegsato hadallada sarbeebta